agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore oo maanta uu rameeyay TV-ga kalsan xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay dhowr arrimood oo quseeya ganacsiga Soomaaliya. Cabdi Abshir Dhoore mar uu ka jawaabay su'aal ku aadanayd in dekedda Muqdisho ay ka soo degaan badeecooyin aan quality lahayn ama tayadooda aysan wanaagsanayn ayaa waxa uu sheegay in dekedda magaalada Muqdisho ay keeneen qalab lagu kontrolo dawooyinka la keeno dalka iyo sidoo kale badeecooyinka qutul daruuriga ah oo ay dadku isticmaalaan. waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay dhawaan qaadi doonaan isla markaana ay soo bandhigi doonaan qalabka loogu talagalay in lagu kontrolo badeecooyinkaasi. maanta dekedda waxa yaala oo ka shaqeyn doona mar ruumada Soomaaliya ku baraarugi doonaan qalabkii lagu kontrolaayay waxyaalaha waddanka naga keenay tayada qalabka wixii lagu ilaalinayay oo raashinku ka mid yahay oo daawadu ka mid tahay ayaa filayaa in waqti aan dheerayn kadib oo howlgeli doono oo maanta noo rakiban oo dekeddiisa dhex yaala ummadda Soomaaliyeed way ka caafimaad doontaa insha Allah hadday jireen haddaysan jirinba daawo sax aan ahayn iyo raashin maanta waqtigiisa oo dhamaaday waddanka la keeno sida la socoto ganacsatadu dadka la mid yihiin qofka haddaan loola imaanin nidaamkii xakameynaya haddaan loola imaanin la xisaabtanka dhabta ah dawad ogtahay oo ilaahayna abuuray baa inta kutub noo soo diray oo nabi noo soo diray waan ag marayna in loo sheegay ganacsatadu waa shakhsiyaadkuna khaladaad bay sameyn karaan laakiin la xisaabtan iyo joogid iyo control iyo in xuquuqdoodana la ilaaliyo ayagana la fahamsiiyo xaq loo leeyahay. Cabdi Abshir Dhoore ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xayiraadda dawladda Kenya ay saartay xawaaladaha Soomaalida ee ku yilay dalka Kenya. waxa uu sheegay in ay taasi tahay arrin fool xun isla markaana aan looga baahnayn dawladda Kenya xilligani in ay ku dhaqaaqdo. waxa uuna ka codsaday dawladda Kenya in ay dedejiso sidii loo furi lahaa shirkadaha xawaaladaha Soomaalida. waxa uu sheegay in dawladda Kenya qodheedu in ganacsatada Soomaaliyeed ay ka heli jireen canshuuraad taana waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyay ay baaqi noqotay maadaama goobihii ganacsi ee Soomaalidu ay iminka yihiin kuwa xirxiran. xawaalada hadii la joojiyo ama dhibaato soo gaarto guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayay taabanaysaa dadka loogu soo diray in lacagta ku noolaadaan runtii waxa ka xoog badan oo si toos ah u taabanaysa ganacsiga Soomaaliyeed waayo xawaalada waxa mar lacag fara badan oo ganacsiga Soomaaliyeed runtii ku xiran dadka shacbiga ah noloshooda hadii lacag loo soo dirana si dadban bay ganacsiga u saameyntaa waayo cid wax ka gadan lahayd hadaan wax loo soo dirin waxa ay la tahay cid wax ka gadanaya marka dadka ganacsigu way u istaagayaan. waxaan leenahay ciddii dhibaato ku haysa waddanka Kenya oo runtii ah meesha ay maatidanada ku qaxday ayna ku badbaaday muddo dheer runtii lagama abaal dhaco ummadda dariska kula ah waxaa loo baahan yahay ganacsatada Soomaaliyeed hantidooda meesha ay runtii ku badbaado waayo oo muddo dheer aan ka ganacsanaynay oo ummaddu ay deganay waddankaas abaal buu ugu leeyahay. waxaan kaliya oo aan leenahay haddii ganacsiga Soomaaliya ama ganacsatada xawaaladaha ka shaqeeya ay khalad ku jiraan khaladka ay ku jiraan ama waa mid ama labo ha la baaro baaritaan dawli ah lagu sameeyo ha loo raadiyo si maanta xirfadeed dawladnimo dadka aan dambiga lahayn khalad aan ku jirinna ha laga faa'iideysto oo ganacsigu faa'iido badan u qaba wadamada ay joogaan daris ama martida ay u yihiin. sadarteed waxaan rajaynayaa Kenya oo dawlad ilbaxa waa dawlad weyn in ay ayadu garan inay soo xalinaysan arrimahaas. Cabdi Rasaaq Aadan Qoslaaye Kalsan TV magaalada Muqdisho.